bismillaahi raxmaani raxiim galabtay oo ay tahay taariikhdu 30kii bishii 10aad 2012 waxaan kulan ku yeelanay degmada Mandiireley qaasatan dugsiga hoose dhexe Dr. Kulan ee degmada Mandiireley guddigaas oo ay isugu yimaadeen dhammaan waalidiinta guddiga magaalada haddii ilaahay kuna maamulaha iskoolka macallimiintii iskoolka wax ka dhigaysay nabadoon Cabdikariin Maxamed Maxamuud Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud ardadii dhammaanteen galabta halkan ayaan ku kulannay waxaana rabnaa xog waraysiyo iyo maaragtay iyo bal meesha wax u marahayaan inaan wax ka ogaano ayaguna ay maaragtay maamulka iyo guddiga iyo dhammaan ay maaragtay ayaguna ay naga siiyaan warbixin guud iyo meesha wax u marayaan iyo ardada heerkooda waxbarasho insha Allah haddana waxaan ku soo dhaweynayaa Sheekh Saciid Xasan Cadde ku soo dhawo Sheekh Xasan Cadde bal warbixin naga sii meesha wax marayaan iyo iskoolkan iyo insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim wa mahadsanid barnaamijka loo bilaabanayaa dhammaan horta waalidiinta ardayda iyo jaaliyada dawladda ragga noogu yimid dhammaan horta way mahadsan yihiin mahadcelin ka bacdi dad waxaana islaama waxaan rabnaa inaan ku furfurno barnaamijkeena quraanka kariimka waxaan noo akhriyaa Sakariya Cabdiraxmaan Kaariye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. وردنت اسكولك ورئيس برنامج كنا بعد القرآن الكريم كبعدي سنة بسيطة واحد كتيرنا لبكم تواني لبكم تواني صدق برياش اسكولك هذا وحكبرة أو اسكولك تشوفه مرة كوب الله وصدق برا يعني ومرنا معمولة مرنا برا أرضنا خير كل واحد يفصل كقوات إلى فصل كأفراد عددهان إلى واحد جاريان سديتن أرضية جاريان مركز الله سكودر درا فصل هذا أيوة وليو قبلوها يبدين أو قبلوها جاريان إلى أيوة أفرتن يشن ملا سيقبلوه جاريان كبدين ويلش بدي جوالدك ويلش غيان سكولك وأنا ما حد علينا معلمين تا مادوينك أيها قال دونا waxay baraan wuxuu baraa Ingiriiska wuxuu baraa xisaabta iyo sayniska wuxuu baraa Carabiga iyo Soomaaliga anuguna waxaan dhigaa tarbiyada iyo cilmiga bulshada oo taariikhda juqraafi si loo yaqaan iskuulku wuxuu soo maray marxalado runtii aad u kala bedelan oo dib badan wuxuu iskuulku furan yahay 2003 ilaa maanta 2012 aan marayno waxaan moodaa marka dad badan inay horta faa'iido ka gaareen oo ama dugsi sare ka baxeen ama ay maanta jaamacada ku jiraan laakiin ma aysan ahayn dad isku xiran arday isku xiran oo yani cadad ahaan ku muuqata ma aysan ahayn waxaan ardo markii nin waliba uu muddo joogo oo iskuulka uu hadba habsaamo uu waalidkiisu ama meel geynaya ama ardayga laftigiisu iska tago oo meel kale waxbarashadiisa wadanayay aniga waxaan nimid 2009 baan iskuulka asagoo ay yihiin laba ardada hadda afraadka sanadkan ah ay yihiin bilow ay ku yihiin iskuulkuna uu xirmayo sanad dugsiyeedku sii xirmayo waxaan ku soo gaaray arday gaaraysa ilaa iyo 10 oo fasalka 8aad ah ardadaasna waxaan u gudbinay magaalada Gaalkacyo si ay shahaadana u helaan dugsi sarena u helaan waxaan rajaynaynaa intooda badan inay soo qalin jebin doonaan dugsi sare ka soo qalin jebinayaan sanad dugsiyeedkan aan ku jirno oo 2002 faa'iidada iskuulku uu leeyahay magaalada waxaa ka mid ah in ay maanta jiraan arday badan oo meelo badan naga soo waca ama hadda jaamacadaha ku jira ama jira dibadda jira ama xataa qaar Yemen joogaan oo soo wacan oo ay ka mahadcelinayaan iskuulka waxbarashadii ay ku soo barteen ayuu waliba arkay waxbarashadii markii halkaan ay ku haysteen taakule rag walaalada Ilaahay u qasbay ay ku haysteen markii ay meel kala tageen ay la kulmeen qarash aad u far badan ay la kulmeen oo taas ay fahmeen markaas
يعني dadka walaalooda ama jaaliyada dawladdu walaalooda waxay u hayeen yoonaga ay u galeen ayaga waalidkood ay ka mahad celinayaan runtii galabtu way fiicnaan la tir badan oo ilmahoodu ay ragaas ka mid yihiin joogaan laakiin ma ay joogaan galabta macallimiinta qaar way ku cusub yihiin deegaanka ragna waa rag deegaanka u dhashay macallin maxamed bishaar iyo macallin xuseen waa laba nin oo ku cusub deegaanka macallin maxamed bishaar waa ninkaas wuxuu dhigaa ingiriiska macallin xuseen waa ninkan wuxuu dhigaa sayniska iyo xisaabta ayuu dhigaa waa laba nin oo laga keenay inay iskuulkan nooleeyaan looga keenay Nairobi ama dalka Kenya laga keenay ka yimid in iskuulkan ay wax ka nooleeyaan waxbarashadiisa kor u soo qaadaan macallinkan waa deegaanka sanadkii hore wuxuu ka shaqeynayay iskuul kale sanadkan anagu nagu soo biiray isagoo waliba rabay meel kale u shaqo tago markii guddaan wada hadalnay wuxuu u arkay wanaag inuu ka shaqeeyo iskuulkan inay aad ugu habboon tahay asagoo deegaan ahaan iyo si walba u fiiriyay waana macallin Cabdullaahi ayaa la yiraahdaa wuxuuna dhigaa carabiga iyo wuxuu dhigaa Soomaaliga waxaan jeclahay marka waalidiinta aan ku adkaynaynaa sidii kulankeenii isniintii dhacay iskuulka horta hadday suurtagal noqon lahayd annaga waxaan jeclaan lahayn 12 ama 12 iyo barka waayo 12 iyo barka macallimiintu way fadhiyaan iskuulka dhex fadhiyaan way joogaan 12 iyo barka saacadu markay tahay subaxnimo way joogaan macallimiintu iskuulka xaadir ku yihiin sidaa diraad inay sidaas oo kale ayaguna ay yimaadaan oo ardayda inay noo yimaadaan laakiin waalidiintii waxaa ku dhagan dugsiga quraanka ayaa xogaa ayuuna waxay rabaan in iskuulka ilmihi aadaan taas ayaa waxay keentay ilmihi dibna uga dhacaan annagoo laakiin mowqifkeenu wuxuu taagan yahay haddii ay suurtagal tahay ilmihii in la helo 12 iyo barka ugu dambeyn in la helo oo iskuulka ay yimaadaan aad baan u codsanaynaa waana soo jeedinaynaa waxaan kaloo codsanaynaa sidii aan awalba codsanay ilmaha in loo helo inay wax akhriyaan si wixii iskuulka ay ka qaateen ay uga miro dhaliyaan waxaan kaloo waalidka ka codsanaynaa ilmihii inay la socdaan oo ay hagaajiyaan oo ay ogaadaan oo ay macallimiinta soo weydiiyaan oo qof waliba maanta uu awood u leeyahay asbuucii hal mar laba mar ama telefoon ku soo waco ama ha yimaado inuu sidaas isaguna waalidiintu ay yeelaan aad baan uga codsanaynaa oo waa ballanteedii galabtii dhaweyd bay ahayd haddii iskuulka rag baa ilaahay u khasbay oo alxamdulillahi rabbil caalamiin ma hadiya ku gaadho raggaan nagala joogaan maxamed xasan iyo axmed oliya ay nagala joogaan oo bannaanka jira oo rag fara badan ah waxaan codsanaynaa marka ragga kale oo deegaanka sidoo kale ugu dhashay in ay oo Soomaalida ama deegaanka galmudug u dhashay inay sidaas oo kale ay u dareemaan oo ay la qabtaan wax la qabtaan lana taabkulayaan iskuulka ayaan sidaas oo kale codsanaynaa oo bannaanka aan ka codsanaynaa rag bannaanka jira waxaan kaloo mahad sidaas daraadeed waxaan u mahad celinaynaa raggaas jaaliyadda oo dibadda jooga oo raggaan ay nagala joogaan in wixii ay qabteen na waa uga mahad celinaynaa in ay sii laabaan oo ay iskuulkii wuxuu sanadkan ka baxayaa dugsi hoose buu ka baxayaa wuxuu galayaa dugsi dhexe markuu galana wuxuu galayaa dugsi sare markuu ka baxana wuxuu galayaa jaamacad ayaan rajaynaynaa ilmihii inay galaan marka sidaa yani waxbarashadaasaas isku daba taalla waxaan codsanaynaa si ay hore ugu qaadi lahaayeen inay meel ay kasto ay tahay ay la gasho inay sidii ay u istaageen awal ayadoo cid u dirin cid ka codsan sidii ay ugu istaageen haddana ay ugu taagnaadaan uguna istaagaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaas ayaan wargii kusoo gabagabeynaya haddana waxaan jeclahay inaan kusoo dhaweeyo macallin bishaar wax yar siciid adoo raalliya aad baa u mahadsan tahay waxbarashada qiimaha badan oo wanaagsan oo noo soo jeedisay oo ku saabsan iskoolka iyo waalidiinta iyo maaragtay iyo fikradda u soo jeedisay waalidiintu inay ilmahooda maaragtay iskoolka iyo waxbarashada iyo boogga guriga marka la yimaado inay casharadooda ka shaqaystaan oo ku dhiirageliyaan si ilmahooda wax u bartaan arrin fiican weeye marka waxaan rabaa su-aal yar inaan ku weydiiyo dhowr su-aalood su-aasha ugu horeysa waxaan rabaa inaan wax ka ogaado meeqa fasal ayaa maaragtay iskoolkan ka kooban yahay ardada dhigatase waa meeqa gareed bay u kala qaybsan fasalka koobaad labaad saddexaad meeqaa dhigata meeqa fasal buu ka kooban yahay waa taas waa su-aal su-aasha waxaan rabaa su-aalaha iyagoo inaan israacsado su-aasha labaad ma leedihiin waalidiinta iyo maamulka iskoolku xiriir joogta oo mataqaanaa mararka qaarkood ma shirtaan bishii mar ma shirtaan wax shirar oo aad leedihiin oo waqti aad goosateen si aad u kala warqaadataan oo maxaan ku yidhahdaa cunugii iskoolka ka saaqida cunugii aan waxbarashada ku fiicnayn si waalidkii loogu sheego oo waalidkii u canaanto oo mataqaanaa laftirkeenu inta wada fadhiisataan
aada go-aan iyo talo iyo maarata wax ka soo saartaan oo wax iskula falanqaysaan si maarata cunugii xoogaa waxbarashada ku saagsaaga loo toosiyo loo wada caawiyo mataqaana fikrad aad ka wada midaysantii aan usoo jeed arrintaas ma jirdhaa waa mahadsan tahay axmed iskuulka horta fasaladiisu waa koowaad labaad saddexaad afraad lambarada meesha ku yaalla waxaan ugu talagalnay hal gelin iskuulku ma u qaado oo ma u qaadi karo haddii uu ka baxo dugsiis hoose markay ka baxaan sidaa hadda fasalka kuwa ku taalla yani fasalkaas haddii ay awood kale la waayo inay dhigtaan sida koowaad baa dhigta inay gelinka dambana dhigtaan shanaad fasalkan kale waxaan ku talagalnay haddii la awood sidaasoo kale la waayo haddii shanaadna kaas galabta u dhigto inuu kana ay dhigtaan labaadna subaxdii u fadhiisto lixaadna uu subax fadhiisto kan waxaan ku talagalnay inuu saddexaad fadhiisto subaxdii galabtiina uu fadhiisto toddobaad ama labada fasal si loo kala bedelo kaasna waxaan ku talagalnay sidoo kale afraad iyo in sideed inay fadhiistaan ayaan noo ku talagalnay markii aan aragnay ciriiriga iskuulka ka jira fasalada ka jira laakiin hadda ardada dhigata waa dugsi hoose waxaa ugu hooseeya koowaad labaad saddexaad afraad bay marayaan hadda koowaad saddexaad afraad koowaad labaad saddexaad afraad ayay marayaan sanadka dambena waxay gelayaan fasalka afraadka wuxuu gelayaa shanaad ayuu gelayaa halkaas dugsiga dhexe ka bilaabanaya haddii ilaahay qadaro guddiga waalidiinta tirada horan usoo gudbiyey meelahaas ardalkasi ay hore gudbiyey waalidiinta shir waa shirnaa hadda isniintii dhaweyd isniinta hadda shalay ahayd maalin isniinta ka horreysay waan shirnay dhammaan waalidiinta meesha fadhido dhan halkaan aan isugu nimid oo hataa guddi waalidka oo khaas iskuulka horta wuxuu leeyahay guddi waalid oo khaas oo si gaar oo la shaqeeya ayuu leeyahay guddi waalid oo khaas ah oo si gaar oo la shaqeeya ayuu leeyahay oo maamulkii iyo macallimiintii iyo guddigaas si gaar ay uga wada shaqeeyaan haddana markii loo baahdo guddiga waalidiinta ardada oo dhan waa shirinaa waa kulminaa sida dhaxday isniinta hadda setimaanka hore aan u shirnay dhammaan waalidiintan aan u wada shirnay oo wixii warbixin aan u kala qaadanay wixii aan mawaani isku soo jeedin karnay iyo maa ku saabsan aan isku soo jeedinay dhammaan marka waa leenahay waalidiinta iyo iskuulku xiriir joogta ayay leeyihiin macnaha shir waqti go-an oo maxaan ku idhahdaa aada goyseen oo bishii mar ama labada bilood mar dhaca ma jira laakiin markii un wax dhacaan baad maaragtay shir wada qaadataan waa labay kala tahay guddiga waalidka oo waxbarashada waa si joogta ah buu la shaqeeyaa iskuulka mar haddii shir loo baahday setiimaankii haddii laba jeer loo baahday intaba way jiraan laakiin guddiga waalidiinta oo guud si guud waxaa loogu yaraa markii loo baahdo maasha allah